Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Soo dhawaada asxaabta qaaliga. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena caadiga ah oo iskugu jira grammarka, kuma, yasma, delime, maxaa la dhahay, yasma wax dhan iskugu jiray. Marka unitkeena afraada bilaabanayna, laakiin grammarka inta waa dhaafnay. Hadda unitka waan ku jirnaa, laakiin cashirka waan dhaafnay grammarka. Laakiin haddana waan ku celinaya maadaama wax dhan oo kan iskugu jiro. Axad kasta grammarka soo geliya insha Allah. Dankaal qofkii PDF-ka buuggan u baahan qaybta hoose aa linkiga ku reeba insha Allah. Linkiga ku dhufanaysa meeshaad tagaysaa kadib aabir jbiro ku tusaaya aabirkaa soo degsanaysaa. Hadda kuwa kale aarabtiga soo degsan kartaa ayakoo darsi kitaab jalismo kitaab maxaa ku qoran delima mid kasta saddex uu ka kooban yahay waa soo degsana delimaha waa iskaga ceeshanaysaa si aa ula qabsatid insha Allah. Marka unitkan waxaa la dhahaa benim dunya waxaa la dhahaa adduun ama wow. So benim wixiga soo maaha benim dunya adduunkayga my wow adduunkayga. So maanta maxaan ka hadlaynaa topickeena ailem familygayga. Aile waa carabi malaynaa aile. So aile waxaa la dhahaa familiga. Ailem waa familkayga. Ailem meedan maxay sheegaysaa familkayga. So maanta waxaan baranaynaa hooyo, aabbo, walaalo insha Allah. Hubina ujeedin. Marka maxaan ka bilaabaynaa anne waa hooyo anne waa hooyo anne waa hooyo. Baba waa aabe baba. Kiss kardesh cashirkan hadda kor waan soo geliyay aile cashir ku qoranta family oo 8 daqiiqo soconaya ku jiro familka dhan aa ku qoray insha Allah xataa English Soomaali ku qoray waan sharaxay. Anne waa hooyo baba anne alaysaa anne hooyo baba aabe baba. Kiss gabar la dhahaa marka kiss kardeshna waa walaal. Kiss kardesh waa walaashaada ka yar gabadha walaashaada oo ka yar adiga ahaan meena ama kugu soo xigto ama ka sii yar. So kiss kardesh la dhahaa kiss kardesh. Abla waa walaashaada ka weyn gabadha ka weyn adiga ka korkaaga weyn meena ama curad ha ahaato ama adiga da'da ka weyn ha ahaato abla la abla. Erkegna maxaa la dhahaa wiil. Kiss waa gaal ama gabar erkeg boy ama wiil. So erkeg kardesh waxaa la dhahaa walaalkaaga ka yar. Kiss kardesh walaasha ka yar erkeg kardeshna waa walaalkaaga ka yar wiilka. Aapi waa walaalka ka weyn aapi walaalkaaga ka weyn wiilka ka weyn ama curad ha ahaado ama adiga qof da'da ka weyn ahaado ama da'da ka siman adiga un kan ka weyn oo korkaaga weyn oo kula dhashta maxaa la dhahaa aapi. So aapi waa walaalkaaga. Abla maxaa walaasha ka weyn walaalka ka weyn aapi. Tayse waa habaryar hooyo walaasheeda hooyo gabadha la dhalatay oo habaryarta ku ah ayaa waxaa la dhahaa tayse. Dayi waa abtiga hooyo la dhashtay hooyo walaalkeeda wiilka hooyo la dhashtay oo abtigaaga ah maxaa la dhahaa dayi. Amja waa adeer aabbo walaalkiisa wiilka la dhashtay walaalkiisa la dhashtay maxaa la dhahaa amja. Hala waa eedo waa aabe walaashiisa aabe gabadha la dhalatay maxaa la dhahaa hala eedo ama aabbo walaashiisa hala. Marka maxaa soo haray ayeeyo awaan baranaynaa marka ayaga ayeeyo way u kala saaranta ayeeyada hooyo dhashay ayeeyada aabbo dhashay awooha laakiin waa same marka baba aabbo ayuu ahay annana hooyo eed baba anne markii hooyo aabbo la isku dara maxay noqdeen baba anne waa aabbe hooyadiisa ayeeyada oo aabbo dhashay oo aabbo hooyadiisa ah ayaa maxaa la dhahaa baba anne annadii hooyo ahayd iyo baba ayaa la isku dara marka maxay isku noqdeen baba anne ayeeyada aabbo dhashay aabbo hooyadiisa. Anne laba hooyo marka la isku daro maxay noqonayaan anne waa hooyo hooyadeeda ayeeyo hooyo dhashay meena marka ayeeyo aabbo dhashan waa baba anne ayeeyo hooyo dhashan waa anne baba anne marka baba iyo anna la isku daro baba anne waa ayeeyo aabbo dhashay aabbo hooyadiisa hooyo hooyadeeda waa anne ama ayeeyo hooyo dhashay. Awoowaha aabbaha dhalo ama hooyo ha dhalo aabbo hooyis ha ahaado ama aabbo aabiis ha ahaado ama hooyo aabeed ha ahaado deede ay dhahaan deede awoowaha waa isku mid deede ayeeyada bisa u kala saarnay
deede anaga laakiin ayay awow ayaan iska dhahnaa soo maha ay aabo aabiisaa dhahnaa awow aabo dhalay aa isticmaalaan laakiin ayaga deede isticmaalaan deede isticmaalaan marka I hope inaa ujeedtiin marka deede ayaga isticmaalaan waa awowe ama hooyo ha dhalo ama aabo ha dhalo then maxaa soo haray ayagoo jumlo la gelinayo marka waxaa lagu dhahayaa meeqa walaalaa leedahay marka kaardish haddii lagu dhaho walaalay noqotaa haddii lagu dhaho kaardish misines walaala miyaa tihiin qofkaa kula socda kaardish misines walaala miyaa tihiin marka waa sidaa walaala way noqdaan marka maxaa lagu dhahayaa meeqa walaalaa leedahay kaj kaardishines meeqa walaalaa leedahay meeqa walaalaa tihiin kaj kaardishines meeqa walaalaa tihiin kaj waa meeqa kaardishines meeqa walaalaa tihiin ama meeqa walaalaa leedahay maxaa dhahaysaa uj kaardishis waxaan ahnay saddex walaala ah kaj kaardishines meeqa walaalaa tihiin uj waa saddex uj kaardishis sista maxay sheegaysaa peace anaga somaha sis uj kaardishis waxaan ahnay saddex walaalo saddex walaalo sinin baban sinin adiga baban aabahaaga sinin baban baba biso ahay baban maxaa la dhahay waa aabahaaga so sinin baba binim baba may noqon leedahay been ahaana so sinin baban adiga aabahaaga nee ish yapıyor muxuu sameeyaa muxuu qabtaa shaqo noocee qabtaa sinin baban nee ish yapıyor shaqo noocee qabtaa aabaha muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa marka maxay dhahaysaa ku jawaabaysaa binim babam aniga aabahayga binim waa waxayga binim babam aniga aabahayga doctor waa dhakhtar sinin baban adiga aabahaaga nee ish yapıyor muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa binim babam aniga aabahayga doctor waa dhakhtar sinin annen marka anne ayay soo maha annen marka lagu dhaho waa hooyadaada sinin annen adiga hooyadaada nee ish yapıyor maxay qabataa ilaa qof marka isbaratiin hooyada maxay qabataa aabaha muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa adiga maxaa qabataa soo maha nee ish yapıyorsun so sinin annen adiga hooyadaada nee ish yapıyor maxay qabataa shaqo noocee qabataa maxay ka shaqeysaa binim annem aa dhahaysaa binim annem aniga hooyadeeda marka sinin annen kuma soo celin karto adiga hooyada ma dhihi karti laadaan weydiiy soo ma so binim annem aniga hooyadayda öğretmen waa macalin binim annem aniga hooyadayda öğretmen waa macalin marka waxaa imaaneynaa qaybtaana imaaneynaa hubinaa ujeediin binim annem öğretmen hooyadayda waa macalin öğretmen macalin ayaa lahaa teacher ama macalin marka waxaa imaanay qaybtan asirlik çalışması aşağıdaki kelimeleri resimdeki boşluklara yerleştirelim micnaha meelahan barbanaan aan ku buuxino erayadan hoos ku qoran kelimooyinka hoos ku qoran waxaa ku qoran anne hooyo baba aabe baba anne ayaya ah oo aaba dhasha aaba hooyadiisa deede awowe abla baayo ama walaashaada kaaweyn marka boksidaana la buuxinaya keliya cunugaana hadlaa marka meesha ugu yar mujeeda been bisay buuxiyeen maxaana laka rabaa inuu sheego hooyadiisa aabihiisa walaashiisa ka weyn waa tanaa soo maaha walaashiis ka weyn inta boxkana marka lagu buuxinayo walaashiis ka weyn hooyadiisa waa tanaa soo maaha marka anne intaa ku qoraynaa anne inta waxaa ku qoraynaa abla walaashiis ka weyn abla ilaa gabdhahan kore uga weynta soo maaha kadib maxay noqonaysaa haddana baba anne ayeeye oo aaba dhashay waa tanaa korka ku haysa qoftaana ugu weyn soo maaha meesha marka waxaa dhahaysaa baba anne awowena waa kanaha deede aabihiisna waa kanaha baba inta waa baba anne deede anne abla marka sidaas u qora insha allah inta ka bilaabo marka qofka koowaad ka bilaabo soo ugu horeyn sawirkana ka bilaaba kana ku xijinaya dan kana ugu dambaysiinaya laakiin waa inay sheegay inta waa anne waa hooyadiis abla waa gabadhii deede waa awowinta ku qoraysaa baba anne waa aaba hooyadiisa maxayta baba waa aabe saas u qorayna insha allah marka anne ka bilaabana soma anne nambarka labaad muxuu ahaa yaa ku xigo gabadha ay dhabta ku hayso abla waa walaashaada kaaweyn abla then yaa ku xigo awowaha ku xiga samaha deede
waa awoowe. dede awoowe ama hooyaha dhala ama aabaha dhala, laakiin waa kii aaba dhala soo hada labadu isku mid waxba dhibaato ma laha. kadib marka hadda waxaan qornay anne hooyo iyo baaba anne, maxaan qornay dede awoowe, abla abaayo ama walaasha ka weyn, dede awoowe maxaa noo dhiman baaba anne. marka waa baaba iyo anne la isku dara, baaba anne waa ayeeye aaba dhashay, aaba hooyadiis macna. kadib maxaa ku xigo baaba aabe, baaba marka waa kaas ahan qaybtaan marka waa saas ku dhameynay. marka waxaa imaanayna ukuma waa qaybta akhriska ukuma. marka binim ailem ashirka wuxuu ku saabsan yahay familkeyga soo maha, binim ailem aniga familkeyga, binim ailem familkeyga. marka ilmaha mid kamid ah hadlaa afartan qof aa hadlayso, odagu wuu hadlayaa, habartu way hadlaysaa, gabadhan way hadlaysaa, wiilkan wuu hadlaa, qof kasta wuxuu yahay sheegaya. marka aniga waxaan ahay intaas sana jira. marka waxaa ka bilaabeynaa qofkan koowaad, sheekada ka fahmayna qofka uu yahay. binim adim magaceyga, sevim waa sevim, halil qofka la dhaho binim kocham waa ninkeyga, kocha waxaa la dhahaa nin, kara waxaa la dhahaa xaas ama. marka qofka hadlaayuu yahay waa gabadhan, see ku fahanay because waxay dhahday halil aa ninkeyga ah. so marka waa gabadhan hadlaysa, tana hadlaysa, maamada hadlaysa. so binim adim sevim magaceygu waa sevim, halil qofka la dhahay binim kocham waa ninkeyga, suna qofka la dhaho bizim kizimis waa gabadheena, waa tanaa marka suna waa tanaa, suna bizim anaka bizim kizimis waa gabadheena. feya marti wiilka la dhaho bizim ulumus waa wiilkeena, ulum maxaa la dhahaa wiil, kisna gabar, so ulum wiilka aa dhashaa la dhahaa macna. so mert wiilka la dhaho bizim ulumus waa wiilkeena, been aniga utus yashindayim waxaan jiraa 30 sano, been aniga utus yashindayim waxaan jiraa 30 sano, been aniga öğretmenim waxaan ahay macalin, been aniga öğretmenim macalin ahay laakiin aniga ah soo maaha. so öğretmenim, been aniga öğretmenim waxaan ahay macalin. feya Beşiktaş'ta macnaha waa meel magaceed, Beşiktaş'ta bir lisede çalışıyorum, waxaan ka shaqeeyaa Beşiktaş'ta meesha la dhaho bir lisede waxaa la dhahaa secondary ama high schoolka, bir lisede çalışıyorum waxaan ka shaqeeyaa high school dugsi sare oo ku yaala Beşiktaş'ta meesha la dhahaya Beşiktaş'ta. marka qofkan haddana ku xijinayna binim adim suna waa gabadhan yartaa suma, binim adim suna intaa kusoo fahana daay, suna bizim kizimiz. so binim adim suna magaceygu waa suna, sevim qofka la dhahay binim annem waa hooyadeyda, sevim waa hooyadeyda, halil qofka la dhaho halil binim papam waa aabaheyga, mert qofka la dhaho binim apim waa walaalkeyga, api waxaa dhahay apim macnaha aniga walaalkeyga soma, so waa walaalkeeda ka weyn oo ujeedi oo ka weyn yahaba soma, so abi walaalkaa ka weyn. so mert binim apim waa walaalkey iga weyn mert. been aniga dood yashindayim waxaan jiraa 4 sano, been aniga dood yashindayim waxaan jiraa 4 sano, been aniga ana okuluna gidiyorum waxaan aadaa, ana okulu waxaa la dhahaa iskuulada oo ilmaha yaryar dhigtaan maarta baby classka ama class 1ka, ana okulu waa ilmaha markii oo baby class waxaa la dhahayo markay yaryar yihiin iskuulka kow ay ka bilaabaan ayaa maxaa la dhahaa ana okul. so marka waxoogaa cunta adiga 4 sano jirtaa, marka ana okula dhigataa. so been aniga dood yashindayim waxaan jiraa 4 sano, been aniga ana okuluna gidiyorum waxaan aadaa ana okul. been dood yashindayim waxaan jiraa 4 sano, been aniga ana okuluna gidiyorum waxaan aadaa iskuulka. ana okulu marka waa baby classka ilmaha marka yaryariin iskuulka lagu bilaabo kow class 1ka intay hore soo gaarin class 1 ay soo gaareen iskuul maxaa jira baby school la dhaho ama xanaanada ma af Soomaali xanaana lagu dhahaa, xanaanada inka la geynaa waxa yar heesaha sawiraanta waxaas la baraya, dan ka bacdi markuu meesha kasoo baaso wuxuu imaadaa adii wadankay ku xiran tahay markaas ama beriyoonid wax la dhaho
nursery waxa ama one qofka micnaha galaaskii markaas oo marka ayaga iskuulkooda ana akulo ka bilowda soo been aniga ana akuluna gediyo waxaan aadaa ana akulo waa baby class ama xanaano ukulum iskuulkayga ukul iskuul asma ukulum aniga iskuulkayga Besiktaasta wuxuu ku yaalaa Besiktaasta marka meel magaceeda oo postrafta ka arkaysin meel magaceeda Besiktaasta tada maxaa lagu daray meeshaas ku yaalaa micnaha soo hadana waxay imaanaynaa qaybtan labadan qayb odayga iyo wiilka dhiman samaha gabadhii habartu way hadleen binimaadin halin marka waa odayga samaha aabaha binimaadin halin magaciigu waa halin Sevim qofka Sevim la dhaho binim Karim waa xaaskayga ayada maxay leedahay binim Kocham halin binim Kocham waa ninkayga ama xaajigayga soo asagana muxuu dhahayaa binimaadin halin magaciigu waa halin Sevim qofka la dhaho ama Zevin binim Karim waa xaaskayga Suna gabadha la dhaho bizim kizimis waa gabadheena Faya Matna bizim Ulumuz waa wiilkeena Ulumuz been aniga utustood yashindayim waxaan jiraa 34 sano been aniga utustood yashindayim waxaan jiraa 34 sano been aniga doctorum waxaan dhakhtar ayad maxay dhahday been waxaan hore 80 ana waxaan macallin sama asagana ma maxay been aniga doctorum waa dhakhtar marka doctorum ana ay sama soo been aniga doctorum waxaan ahay waxaan la dhahay dhakhtar sorry guriga koraa waxay jiidayaan been aniga doctorum waxaan ahay dhakhtar faya shishlade bir hastaanada jalishirun shishlade xaafada la dhaho faya shishlade xaafada la dhaho bir hastaane maxaa la isbitaal soo hastaanada isbitaalkaas gudihiisa soo shaqaysana soo been aniga doctor waxaan dhakhtar faya shishlade xaafada shishlade bir hastaanada jalishirun isbitaal ku yaala shishlade ayaan ka shaqeeyaa waxa soo haray wiilka binim adim mart wiil magaciigu waa mart binim adim mart magaciigu waa mart sevim binim annem sevim waa hooyadeeda sevim binim annem waa hooyadeeda halil binim papam halilna waa aabahayga halil binim papam waa aabahayga sunana binim kis kardeshim waa walaashayda iga yar maxaa daadahana kis kardesh walaashaada kaa yar arkay kardesh walaalkaa kaa yar abla walaashaada kaa weyn gabdha kaa weyn maxaan lahaa aabimna walaalka kaa weyn ayad maxay dhahday mart binim aabim waa walaalkayga iga weyn isagana muxuu dhahay binim kis kardeshim sunna binim kis kardeshim waa walaashayda iga yar soo waa gabar soo maaha been aniga 6 yaşındayım waxaan jiraa 8 sano been aniga 6 yaşındayım waxaan jiraa 8 sano been aniga ilig ukula 2 sanifta gidiyorum ilig ukula waxaa la dhahaa lower classes ka macnaha iskuulka class 1 up to class 2 class 3 ayaa waxaa la dhahaa ilig ukul ana ukul ayada dhigataa waa qaybta baby classka ama xanaanada isagana wuxuu dhigtaa ilig ukul ayaga macnaha iskuulkooda wuxuu ka kooban yahay ana ukul ilig ukul orta ukul marka orta ukul waa upper classeska qaybaha kore kadib maxay aadaan lisa kan lisadan waa high school marka hadda asagu muxuu dhigtaa ilig ukul iskuulka one up adiga lower classes ka dhigtaa up to class 3 macnaha marka waxaan dhigtaa u dhahay classka labaad aan dhigtaa soo been aniga ilig ukul ikinji sanifa gidiyorum ikinji macnaha fasalka labaad oo dhigtaa soo ma ilig ukul fasalka labaad class 2 soo been aniga ilig ukul ikinji sanifa gidiyorum waxaan aadaa iskuulka ama aan dhigtaa waxaan aadaa iskuulka ilig ukul iskuulka lower classeska class fasalka labaad binim ukulum iskuulkayga kabatashta ayaga macnaha asaga xaafadaas kabatashta ku yaala kabatashta xaafad la dhaho walaashiisna xagee ku yaala Besiktaasta laba xaafad ku kala yaala iskuulkooda soo been aniga ilig ukulu ikinji sanifa gidiyorum waxaan aadaa iskuulka fasalka labaad ee lower classeska binim ukulum iskuulkaygana kabatashta wuxuu ku yaalaa xaafada kabatashta I hope inaad fahanteen inshallah markaa sheeko qoraysa saa u qoraysa idinkana waa inaad taraagiraysaa aad wax ka sheekeynaysaa intaan unbaa bedelaysa intaas sanaa jiraa waan shaqeeyaa ama ardayaan ahay walaalahaasaan leeyahay waa sheegaysaa micnaha walaalkii iga weyn waxaasoo bartaa iskuulkaasoo dhigtaa intaa unbaa ka tusaale qaaday marka sheekooyinka waxaa la sameeyaa sheeko markaa aragtid
waa fahmaysaa sheeko u eg aa la qoraa macnaha qoraalka wax kuu fududeynaysaa inaa yasmaha qorti insha allah. marka qaybtaana imaanay waa su-aalo, qaybta su-aalahan ka shaqeynayna insha allah. marka yukarda waa sheekadan kore mete goore ashadagi jumlalari dooro macnaha ayadoo loo fiirinayo sheekadan aan soo akrinay su-aalahan hoos ku qoran dooro hadday sax tahay dooro ise dee aan qorayna hadduu sax tahay dooro yanlishna hadday qalad tahay yanlish ise hadday qalad tahana yee aan qorayna koyalim meeshaana dhigayna macnaha buuta camal koyalim waa dhigitaan. so marka meesha maxaa ku qoran magacyadooda hadday sax tahay dooro aa qoraysaa hadday qalad tahana maxaa qoraysaa yanlish aa qoraysaa hadday qalad tahay. so marka waa sidaas yanlish aa qoraysaa hadana ila socotiin. sorry weird marka waxaan soo qaadanaya kalarsa u kalaree. marka suna imaan suna sevim fea halilin kisi macnaha suna gaba la dhaho sevin qofka la dhahayo fea halil iyo halilin kisi macnaha waa gabadha sevi iyo halilin saxa. suna gabadha la dhaho waxay gabadhooda tahay halil fea marka intaa ka fahmaysa marka sevin fea halilin waa lahaansho halilin kisi waa sevin iyo halil gabadhooda suna waa sax soo maaha. marka waxaan dhahaynaa dooro waa sax dee aan qorayna kuwa oo doorada oo saxda ah maxaan qoraynaa dee dooro. maxaa soo haray mert wiilku ahaa soo maaha mert sunanin abin waxaa la dhahay suna gabadha la dhaho walaalkeeda waaye walaalkeeda ka weyn. marka mert wiilka mert la dhaho sunanin abin macnaha waa sunno walaalkeeda ka weyn waa sax soo maaha walaalkeeda ka weyn oo ahay. so kana waa sax marka tii sax marka jumlada hadaa sheekada fahmi marka kama shaqeyn kartid imtixaanka waa lagu keena. maxaa lambarka uj ama 3 sevin qofka la dhaho sevin hooyada ee soo maahan suna fea martin ablasi suna iyo mart ay waxay u tahay walaashooda ka weyn ma ahayn soo maaha hooyadooda ahayd waa qalatan. so sevin suna fea martin ablasi waa walaashooda ka weyn suna iyo martin so ma aha hooyadooda ahayd. so tanna waa yanlish sorry yanlish. yanlish marka meeshana xoogaa farwaan ku qoray marka yee aan inta qoraynayaa sida fahmi insha allah yee aan ka wada. soo kan saddexaad waa yanlish because walaashooda ma ahayn walaal labadooda ka weyn maba qabaanba bahalka hooyadooda ahayd yee aan ka wadayaa. marka waxaa imaanay dot maxaa lahay mart wiilka mart la dhaho sunanin kojasi waa sunno ninkeeda sunno waa walaashiisa ka yar kiskartish soo qalad waxay oo isqab waxay ahayn sevin iyo halil. so mart soo sheekadan saana ugu laabanaysa marka taa fahmays sunna maxay ahayd maxay lahayd sevin waa binim annem halil binim babam mart binim abim sevin waa hooyadeyda halilna waa aabahayga martna waa walaalkayga iga weyn. soo marka sheekada waa qalad soo maaha. so maxaan dhahay mart sunanin kojasi wuxuu nin u yahay waa ninkeeda macnaha sunna ninkeeda ayaa mart la dhahaa waa walaalkeeda ka weyn xakeennuna u ahay. marka waa yanlish soo maaha yanlish kana waa yanlish. so yanlish ka wadaa yaa aan ka wadaa hadday isku tarsami karaa noqdo waa yanlish. labadan waa qalad labadan hore waa sax waa dooro labadan dambana waa yanlish yaa aan qora waa qalad. so maxaa soo haray paste sunna fea mart suna iyo mart halil fea sevin jujuklare maxaa la dhahay suna gabadha la dhaho fea mart iyo wiilkan halil fea sevinin jujuklare waa halil iyo sevi ilmahooda jujuklare ilmahooda waa sax soo maahan ilmahooday ahaayeen. so because waxaa la dhahay suna waa waxay dhaheen kisimis waa gabadheena martna ulumus waa wiilkeena. so marka suna fea mart
halin sevinin jujuglaray sevinin kan waxay sheegaysaa lahaansho topigan waxaan ku baranaynaa lahaansho wax la dhahay lahaansho soo marka micnaha like abaayo baawurkeeda abaayo hooyadeeda baawurkiisa lahaanshaha ku baranaynaa marka soo marka labadan saddexdan waa sax labadan dhexa qalad ah 4 iyo 3 qalad ah micnaha ayaan naga noqotay waana dhignay waxay maalinaa kan saddexaad ashadagi gebi jumlalari koralim soo ashadagi gebi jumlalar koralim sidan camal hadda example-kana la kaga siiyay qorayna jumlooyin magacyadana loo qoray laakiin waxay isku yihiin aan qorayna hadda like kan koowaad example nooga bixi ayaa ka shaqeyn maxay dhaheen halin sevin labadooda ma magaca qoreen mugti maxay isku yihiin labadan nin inagtiisa ah somaha maxaa la dhahay inay xaaskiisa soo halin sevinin kojasi halin qofka la dhaho sevinin kojasi waa sevi ninkeeda koja maxaa la dhahaa ninka oo sayigaaga soo waa sax somaha marka maxaa la sevin iyo halil sevin halil maxay u tahay marka hadda halil la hormariyay somaha soo halil la hormariyay halil sevinin kojasi waa kana muxuu noqonayaa sevin halilin aan dhahayna halilin and karasi macnaha ayaduna waxay tahay halilay waxay u tahay xaaskiisa saas marka u qorayna oo kale lahaanshahana laga rabaa meesha sheekadu waa lahaanshahan waxaan baranaynaa topican lahaansho ku saabsan yahay marka insha Allah inta ku qorayna waxaan ka bilaabaynaa sheekada qaybtan kale ay ka qoreen mugtahay qaybtan ay ka qoreen ka shaqeyn anaga waxaan ka bilaabaa sevin iyo halin kadibna waxay isku yihiin aan ka rabaa sevin halin kadib maxay isku yihiin waxaan qoraynaa jumladii marka waxaan leenahay sevin si u kala horeen sevin magacay ahayd soo kabitaala ka dhigayna sevin maxay tahay hadana halilin marka apostrophe na kala soo halilin karasi halilin karasi sevin iyo halil qofka horeeya markasta muxuu yahay qofka la isticmaalo sevin iyo halil ala marka sevin aan dhahayna halilin karasi waa xaaska xaaska halil marka qaabka oo ku keenay meeshaan soo arkayna sheekadan fiiriya maxay dhahday haday halil binim kocham waa ninkayga asaguna muxuu dhahay sevin binim karim waa xaaskayga karim soo karasi soo meesha waxa kiila markaana ii ahayd tan wax ka dhigaa soo meeshaan waxaan ka dhigayaa meeshaan soo dhigraa maqanta ii ahayd karasi marka waxaan dhahay waa xaaska oo halil waxaan imaanaynaa haddana lambarka labaad ka wada marka lambarka labaad muxuu ahaa kan labaad waa ka shaqeynay kan koowaad ayaa ka shaqeyn kan labaad ayaan ka shaqeynay kan saddexaad marka mart iyo halil aan dhahayna marti muxuu halil u ahaa qofka koowaad ayaa wax ahaanshaha wax ah somaha qofkaana u yahay soo mart halil muxuu u yahay marka waxaan leynaa mart halilin ulusu micnaha waa wiilka halil somaha wiilka halil soo marka mart halil aan qorayna marka mart iyo halil kadib jumladaan qorayn maxaan dhahaynaa marka mart halil apostrophe halilin inaha waa lahaansho somaha halilin ulu waa wiilka maxaa la dhahaye halil wiilkiisa ulu halilin ulu muxuu ahaa ulum wiilkayga somaha marka ulu waan ka shaqeyna kana waxaana soo hartay kan afaraad marka anaga hadda kanaan kow dhahaya hadda waa ku wareerina kanaan kow because numberka 1 ayaa ka shaqeyn soo ujna waa ka shaqeyna dooda imaana 4 ayaa imaanay
marka dad muxuu ahaa sunna iyo mart maxay isku ahaayeen marka sunna mart qoreen walaalay ahayn samaha sunna mart kadib maxaa qoreynaa waxay isku ahaayeen markaan leenahay sunna martinin waa magac markabatanaa kalima somaha martinin kiskardesh somaha martinin kiskardesh yaan dhehna marka sunna maxay ahayd mart waxay ahayd walaashiisa ka yar ahayd somaha magaca markuu yahay waa inuu kabitaan noqdaa maxaan dhahaynaa marka sunna iyo mart maxay qofka koowaada marka wax ah markaas taqan koowaada wax ah haddii aad ka war mart sunna nin abim haddii aad ka war qofka koowaada marka wax noqonayo sunna mart maxay u tahay sunna martinin kiskardeshi waa walaashiisa kardeshi walaashiisa ka yar maxaa soo haray beesh ama lambarka shanaad mart iyo sunna marka awal sunna horeysay soo maahayn hadda marta hore mart muxuu sunna u yahay marka mart sunna maxay isku yihiin marka jumlad galnaa hanaa marka maxaan ka bilaabayaa mart sunna nin marka waa inta maadaaba saan ma dhihi karata marka kan intaas kuma dari kara because laba xaraf isma raacdo oo shaqal ah waa inaan na kala qaata marka naada maxaa u qaatay awal inta ma qaadanayn because inta xaraf weyn u dambeeyo kaliya aan ku daraay ne oo ahay kan laakiin maadaaba xaraf oo shaqal u dambeeyso waa inaan na u dhex mariyaa si shaqalka ugu daro waxa weyn ay la socotiin marka waxaa leenaa mart sunna nin abi muxuu ahay walaalkeeda abi waa walaalkeeda ka weyn soo maaha walaalkeeda ka weyn abi oo ahaa marka bisaan ku dareynaa dambe oo ay tahay marka mart waa sunna nin abi wuxuu u yahay qofka koowaad marka oo magaca koowaad markasta wax noqonayo waxaa imaanaynaa yedi ama 7 maya alta ama 6 sunna iyo 7 maxay isku yihiin waa hooyada somaha marka waxaan dhahaynaa sunna 7 kisi somaha waxay u tahay gabadha u tahay waa gabadha ayada ay dhashay soo sunna saving labadan maxay isku yihiin iska rabaa soma saving maxay isku yihiin marka waxaan dhahaynaa sunna saving min maxay u tahay kisi kisi waa gabadha oo sevimin kisi sunna sevimin kisi waa gabadha oo sevim waa gabadheeda sooma marka sheekada waa inaa la socotaa waxay isku yihiin dad sheekada la socon waa qaldeed sooma dan maxaa soo haray yedi waxaan qaadanay yaalta oo ahaa sunna iyo sevim marka sevin haddana la hormariyo hooyada la hormariyo sunna maxay u tahay waa hooyadeed somaha waa hooyadeeda marka sevim aa la hormariyo sevim sunna kadib jumla gala maxaan dhahayaa sevim sunna nin marka meesha ay shaqal u dambeyso waa inaan na ku dara kadib en ku dara ama ne ku dara
soo sunanin waxaan u isticmaalaa meeshaan ii la-aantan waa la socotiin somo waxaan soo qaadana kalini inji wax la dhahayo haddii meeshaan a ay tahay waa inaan halkan agrigta iida dhibic la-aanta haddii halkan e ama ii tahay waa inaan halkan iida dhibicda la agrigtay soma soo habinaa la socotiin so maxaan dhahaynaa saving sunanin annesi waa hooyada suna anne soma annesi ayada hooyadeeda annesi so marka waa hubinaa fahmaysiin marka saving sunanin annesi waa hooyada suna dhashay hooyada suna dhashay then maxaa soo haray sixkan ugu dambeeya maxaa soo haray haliil iyo maart maxay isku yihiin haliil waa aabihii maartna waa wiilka marka haliil muxuu maart u yahay soo maaha haliil muxuu maart u yahay maxaan qoraynaa haliil maart soo jumladan qoraynaa marka waxaan dhahnaa haliil soo maahan maart haliil sorry kabtanna u qoraa malaya maantadan haliil maantadan intaa kabtar kaliya waxbaa istoo maraayo Martin waxbaa isku soo celinayaa Martin muxuu yahay Martinin babasi soo maahan babasi qofkee wax ah marka koowaad markasta qofka koowaad ah inta maxaan dhahnaa saving suna maxay u tahay saving sunanin annesi halin martinin babasi marka waa aabaha aaba u yahay qofka koowaada wax ah marka sheekadin waa inaa la socotaa labadooda waxay isku ahaayeen iyo qofka aabaha ah qofka wiilka ahaa soo hubina fahanteen adiga waxaan sameynay lambar ilaa 7 lambar aan sameynay marka waxaan ka bilownaa qaybtan lambarka labaad ka bilownaa ujeedin soo adiga kala try garay adiga fiirin insha Allah saas u try garay marka qaybtana hadda noo dhiman marka cashirka wuu dheeraada laakiin inuu dheeraado ma aan rabin laakiin inaa ka shaqeyna ma ahan macnaha confuse noqonaysa maaha soo iskaraal noqdo dheeraaday qaybtana dhiman hadda put jumlalari kim solior marka maxaan dhahaa put jumlalari jumlooyinkan hoos ku qoran ama jumlooyinkan kim solior qofkee dhahay qofka sheegay kim waa who solior qofkee sheegay jumla akhrinayna marka qofkii aan ka rabaa tahmiim edelim an imagination macnaha tahmiim edelim macnaha waa qiyaas aan qiyaasmo imagination faya salim kadib aan qorno inta maxaan ka rabaa boxkan ina magaca qofkii aan ku qorno binim ablam yo aniga melihi walaal bir abin far waxaan leeyahay hal wiil oo iga weyn qofka marka dhahay qofku ahaa waana qanaa soo maaha qofku ahaa soo maxaad binim ablam yo aniga melihi walaasheeda iga weyn melihi ablam walaasheeda ka weyn bir abin far waxaan leeyahay hal wiil oo walaalkii iga weyn bir abin far marka qofku ahay sunne soo s bisan qoraay asadaan qoro waa gabadha magaceeda sorry hay iska weynaataan qoray albina suqat antirayana wana weynaa soo aha marka marka maxay noqonaysaa sunne s qorayna yaraya isku dayaya marka s sunne aan ka wada gabadha magaceeda waa tan sunne gabadha magaceeda qofkan kale hadan labaad oo tagayna orange larim ardadeena chok seviyorum waxa la orange larim ardadeeda chok seviyorum aad ayaan u jeclaa qofkee marka ardada jeclaa arda meesha maxaa keenay macallin soo macalinka qofka ah waxay ahayd maamada because intay ku sheegtay inay macallima tahay xilada binimaadin saving magaci waa saving halin binim kocham halin waa ninkeyga suna binimkiisimiz
bisim kismis waa gabadheena fea mart bisim olumus waa wiilkeena ben otosiashindayam waxaan jiraa 30 sano ben oretmanim waxaan ahaa macalin fea bashik tashta biirliisadee jalishiyorum waxaan ka shaqeeyaa iskuul ku yaala oo secondary ah soo qofka macalinka ahaa muxuu ahaa macalinka lamaba jirinba waa iyada soma marka orangelarimi çok seviyorum ardayda aad ayaan u jeclaha marka waa saving marka hadda waa isku qaldalinaya saving labadooda asay ka bilowdaan saving iyo daraasha saving marka si isku walaaqin sorry marka saving ma ka wada maadaama s ayada ay gabadh isla ahayn saving waa maamadii somaha then fd uj lambarka saddexaad fd n kujug binim guriga qofka ugu yar waa aniga fd n kujug binim qofka ugu yaraa sawirka gabadhana ugu daray sunna ugu yaraa soma sunna hada ugu yaraa soo maxay dhahday fd guriga n kujug n waa qofka ugu yar macna n kujugna waa yar n kujug qofka ugu yar binim waa aniga marka maxay noqonaysaa sunna asla qoraa sunna bismillah aswaalan ay noqoto iskara noqdo waa sunna gabadha ka wada haya heer aksam habeen kasta lambarka afraad dood heer aksam habeen maqrib kasta maqribkii la dhahaa 12 saac ilaa 3 saac habeen inta u dhaxays heer aksam maqrib kasta darsi jalishiir waxaan ka shaqeeyaa darsigeega qoraa heer aksam maxaa la dhahaa heer aksam habeen kasta darsi jalishiir marka qofkii darsi sameeyo qofka oo iskuulka dhigtay unugu ah soma gabadha waa iska ana ku lahaa aqriso marka asaga cunugana muxuu dhigtaa xeed qofka darsiga ka shaqeeya marka wiilka labadooda xitaa waa dhihi karna ama hadda wiilka ama inaa qof darsi ka shaqeeya oo gabadha ana ku lawicnaa waxsaas wax inay qorta wiilka wax waa laga yaabaa soo marka maxaa iska dhahaynaa wiilka mart aan ka wadaaya wiilka magaciisa ka wada mart waa wiilka hastalara bukaanada ilaaj feriyorum waxaan siiyaa daawooyin ilaaj waxaa la dhahaa daawo kaniiniga ama daawada hastalara bukaanada ilaaj feriyorum waxaan siiyaa daawooyin qofka daawada siiyu ahaa dhakhtarka iskana ah dhakhtarka adago ahaa muxuu dhahay ben doktorum ana waxaan ahay doktor bir hastanede çalışıyorum Şişli'de bir hastanede çalışıyorum waxaan ka shaqeeyaa Şişli hastaan ku yaala isbitaal ku yaala soo marka muxuu ahay Halil haya qorena marka Halil waxaan qorena Halil soo marka Halil habsan qoraa Halil oo ah qofkan maxaa soo haray binim karim öğretmen xaaskeyga waa macalimaad karim waa xaas binim karim xaaskeyga öğretmen waa macalin qofka dhaha ayuu yahay Halil aa dhahay because Halil oo ah qofka oo xaaskiisa ay macalimaad tahay inta ku qoraa Halil kan labaadna waa Halil Halilan ka wada aan ka wadaya Halil then maxaa soo haray lambarka 7 binim kocam doctor ninkeygu waa dhakhtar qofkaas waa qofke waa Zayvi soo maaha Zayvi binim kocam doctor marka haddii jumlada ku noqotaa dhahda meeshaan aniga dhakhtar binim aadam doctor kuma yaale binim kocam inta ka keenta waa inaa sheekada fahantaa waxay ku socotay because odag muxuu dhahay aniga dhakhtar ah labadoodana isqabeen wayaga sheegeen laakiin ninkeyga dhakhtar ma aysan dhihin sheekada marka haddii aa fahansantaa waa fahmaysa wax laga wada soo saving aan ka wada saving gabadh islaantii saving ahayd ayaa dhahday ayaa ninkeeda dhakhtar yaa soo binim kocam doctor ninkeyga waa dhakhtar binim kis kardeeshim walaasheeda iga yar jog yaramaas waa dhibley yaramaas waxaa dhahaa qofka dhibka badan oo dhiblooga ah soo binim kis kardeeshim walaasheeda iga yar jog yaramaas qofka dhaha ayuu yahay waa mart because asaga le wax oo kis kardeesh la meesha ugu jira soma oo gabadha oo maxaa la dhahaa sunna waxay u ahayd walaashiisa ka yar waalana waa laydin qoraaya soo marka haddana waxaa imaanay dobkuskan 9aad
abim walaalkayga ile iyo aniga walaalkayga with ile marka wuxuu taagan tahay aniga walaalkayga with my brother. So abim walaalkayga weyn ile oyun oynuyorum walaalkayga ayaan waxaan la ciyaaraa ciyaar oyun waa ciyaar oynuyorum ayaan la dheelaa. So abim ile oyun oynuyorum walaalkayga ayaan waxaan la ciyaaraa ciyaar. So maxay tan waa sunna wax walaalka weyn qaba sunna ee somaha marka abim marka asaan ka wada sorry asaan ka wada meeshaan marka asaan ka wada so marka maxay dhahday walaalkayga waa maxay to waa walaalkayga ayaan la dheelaa. Babamla kan tobnaad ama on babamla aabahayga football oynuyorum ayaan banooni la ciyaaraa aabahayga ayaan banooni la ciyaaraa. So qofka aabihiisa banooni la dheelaa inuu yahay meesha shaakada kuma aysan jirin aabihiisa banooni la ciyaaraa laakiin qiyaas karnaa somaha waa wiilka. So Marta ay noqonaysaa marka babamla marka ile iyo babamla waa isku mid hadda dhiilaad abimla way dhihi kartaa ilena waa isku mid labada hadda wuxuu dhihi karaa ben fair ama wuxuu dhihi karaa babamla ile football oynuyorum wuu dhihi karaa ile. So markan la-dan waa with aabahayga ayaan la ciyaaraa. So babamla football oynuyorum aabahayga ayaan waxaan la dheelaa football marka muxuu noqonaa qofkan Mart qofka Mart waa somaha. So marka ugu dambeeya waa Mart marka sheekada sidaas ay ahayd insha Allah hope ina fahanteen marka waxaan meesha aan ka buuxiyana waan ka tirtiraya marka hope ina fahanteen marka meesha maxaa la dhahaa yaa siis adinkana ama adigana marka lambarkooda maxaa lagu dhahaa Sinin Islande Kimlarfar adiga familkaaga qofka yaa jooga inta qofka ka kooban yahay sheegaysa marka benim babam far annem far abim far kis kardeşim far kis erkek hala kis erkek maxaa dhahaa erkek kardeşim far macnaha inta yina sheegaysa haday badan yihiin marka Sinin Islande kimlar far yaa joog marka waa sheegaysa familka inta ka kooban yahay inta leedahay walaal kala marka waxaan ku leeyahay anne fee baban iyo aabahaaga hooyada iyo aabahaaga na isyabiyo maxay qabtaan marka sheekadan adinka inta kaga taga insha Allah inaan cashirka sii dheereeyo maraba next time ku qorayo waa inii soo qorayo laakiin adinkan try garay insha Allah waa familkada ka sheekeynaysa aniga hebel la dhahaa familkayga hebel la dhahaa inta sana jira dheesa familkayga waxa joogan aabaan la hooyo walaalo intay yihiin inta ka yar inta ka weyn inta gabar ka weyn inta wiil ka weyn inta wiil ka yar inta wiil ka weyn sheegaysa then waxa sheegaysa waxa ay qabtaan hadaa rabtid ay sheegaysa ilmaha iskuul haday dhigtaan haday secondary dhigtaan jaamacad dhigtaan kadib aabi hooyo sheegaysa hooyadeed waa guri joogto hani malaha haday ka tahay haday dhakhtar tahay aabaheed sidaas oo qabta haduu ganacsado yahay adan soo marka intaas sheegaysa marka insha Allah saan oo kale waa sheekadan intaan bis fahma then ailadaada ama familkaada waa ka sheekeyn kartaa marka insha Allah soo qaybtaan soo qora insha Allah kadib dilbilkiisahan hore u qaadana qofkii waxoogaa waxaan lahaanshaha ku adkaan dilbilkiisahan cashirka hadda ugu dambeeyo cashirkan ku horeeyay waan dilbilkiisahan ku sharaxay iyo kii kasii horeeyo oo dilbilkiisaha ahay marka insha Allah cashirkeena dambe ayaan qaybtan ku dhigan doonaa bariyaa soo galana insha Allah waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe haddii aana la joogtana waa ku mahadsantahay haddaa cashirka hesheen like saara asxaabtiina la share gareeya insha Allah commentiidina waa ku mahadsantihiin quruxda badan waa arkaa aad u mahadsantihiin iyo dhiirigelintiina insha Allah waxaan rajeynayaa inaan wax inii faa'iideeyo waxa aan ka roonahay dadka luqadda ku cusub dadka aan wadanka joogin oo jecel luqadda inay bartaan insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan buuggaana hoosaan linkiga soo dhigaya qofkii PDF-kiisa u baahan oo aan haysan Istanbul la dhahaa Abir waa buugga koowaad meesha hoose linkigan soo dhigo ku dhufanaya kadib buugta dhan meesha ku jiraan Abir ku qoran marka kaarta degsan karta insha Allah marka inaa fahanteen aan maleynaya marka oo ku mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gurismeeg sare.